iyo isku soo dhawaansho ay ku doonayso inay ku dhex marto dalalka gobolka ee xurgufta ay hore kala dhexaysay. Haddaba sidee ayaa loo fasiran karaa iskaashiga Itoobiya ay ku doonayso in ay gobolka ku hanato? Su'aalahaas iyo kuwo kaleetaba waxa aan weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota. walaal waxay ka dhigan tahay astaamaha suuragalka ka ah isbedel dimuqraadiyadeed iyo wada shaqaysi oo suuragal noqon kara wadamada geeska Afrika ku yaala ayay astaan ka tahay. intaas laga midho dhaliyo ayaa lagu dadaalayaa inay dhici doontana Allahu yaclamu walaal. waa gartay marka laga soo tago taasi wadamadan ku yaala bariga Afrika ee Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya xurgufo hore ayaa dhinacyo badan dadku ay hadal hayaan siyaasadihii hore u soo jirayna inay adag yihiin ayaa la sheegaa. marka maamulada waqtigan jira intee ka gudbaan waxaasi si aan dhib badan lahayn oo dib aan wixii dambe loogu noqonayn ma isula jaan qaadi karaan? walaal waxa weeye haddii aynu ka bilowno xiriirka Eritrea iyo Ethiopia ayaa furfurkani ka bilaabmay. intaan wax la isku darsaday la wada shaqaystan la oran waxay ka baaraan degeen labadooduba oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Ahmed Hormuud ka noqday runtii inuu yidhaaho waxyaabahaanu kaga gardarfayn Eritrea waanu ka baxanaa. marka raaligelintaasi waxay keentay in wada hadal ka sarreeya xadkii ay isku hayeen iyo magaaladii Baadame ay la dhaafo. way kalsooni siiso Eritrean-kana inuu ninkani ka duwan yahay kuwii hore uu taa u muujiyey. Eritrea Soomaaliya colaadi ka mid ahayn oo xadma wadaagaan. Eritrea maryaabo fara badan way taageertay Soomaaliya. maryaabo fara badanna dowladii Soomaalidu way ka ashkatoon jireen. marka iyagu xurgufko dheer oo ka dhaxaysa ma jirin. dowladii Soomaaliya markay weynay jirtayna Eritrea gobonimada raadinaysay si weyn baa loo caawiyey in gobonimadooda helaan. marka waxa weeyaan meesha ka maqan waxa weeye laba arrimood baa ka maqan. mid waxa weeyaan xurguftii iyo xooggiga dhibaatadii ka dhaxaysay Soomaaliya iyo Ethiopia weli lama taaban. haddii wax la isku darsanayna waxa muhiima in horta kuwa la xaaro weeyaan. haddaan la xaarin waxa weeyaan boqolihii hore ayaa lagu kufi doonaa.